ardada Soomaalida ee wax ka barata dalka India ayaa waxay wax ka kala bartaan gobollo kala duwan iyo jaamacado kala duwan, gaar ahaan gobollada koonfureed ee dalka India sida gobolka Tamil Nadu, gobolka AB iyo gobolka Karnataka. Jaamacadaha dalka India ee ardada Soomaalida wax ka bartaan ayaa waxaa ka mid ah Jaamacadda Madras ee ku taala gobolka Tamil Nadu, koonfurta dalka India, kana mid ah jaamacadaha ugu da'da weyn jaamacadaha dalka India. jaamacadda Madras ayaa waxaa sanad kasta ka qalin jebiyay arday Soomaaliyeed. Sanadkan 2009 waxaa ka qalin jebiyay 34 arday oo isugu jira master iyo degree, kuwaasoo xaflad qalin jebin oo aad loo soo agaasimay ku qabsaday hoteelka weyn ee MGM Hotel ee ku yaala magaalada Jannah ee gobolka Tamil Nadu. ardada Soomaalida ee ka qalin jebiyay jaamacadda Madras ayaa waxay ka kala qalin jebiyeen kulliyadaha kala ah: kulliyadda maamulka iyo maaraynta, kulliyadda kombiyuutarka, kulliyadda microbiology-ga, kulliyadda biotechnology-ga iyo kulliyadda electronic and communication science. ardadan qalin jebisay waxay isugu jiraan master iyo bachelor. ardada bachelor-ka waa qaybta ugu badan ee sanadkan 2009 ka qalin jebisay jaamacadda Madras waa ardada labisan dharka madowga, halka ardada dharka jaalaha labisan ay yihiin ardada masterka. xafladaha noocan oo kale ayaa waxaa ka soo qayb gala dadweyne aad u fara badan oo isugu jira Soomaali iyo ajnabi intaba. waxay sidoo kale ardadu ku casuumaan madaxda ka socota jaamacadda ay ka qalin jebiyeen iyo hay'ado kale. ardada ayaa waxaa wejiyadooda ka dareemaysaa farxad aad u ballaaran, iyadoo arkaysa inay iskugu hambalyeynayaan qalin jebintooda. ardadan qalin jebisay ma ahan arday Soomaali oo kaliya, waxaa ku jira arday Jabuuti oo iyagu sidoo kale ka qalin jebiyay jaamacadda Madras. xafladaha noocan oo kale ayaa waxay sanad kasta ka dhacaan gobollada dalka India ee wax ka bartaan ardada Soomaalida, waxaadna dareemaysaa diyaargarow xooggan ee ardadu ugu jiraan marka ay dhammeeyaan jaamacadaha, iyadoo arkayso inay u kala gooshayaan gobollada kala duwan ee wax ka bartaan ardada Soomaalida si ay ugu hambalyeeyaan saaxiibadooda qalin jebiyey. waxaana xafladahaas khudbado aad u qiimo badan oo isugu jira guwaabo iyo hambalyo ka jeediya madaxda jaamacadaha iyo aqoon-yahano Soomaaliyeed. mudane Major M Jilali waa madaxa kuleejka Maxamed Sadaaq ee hoostaga jaamacadda Madras, wuxuuna ka mid ahaa madaxdii ka hadashay xafladan. hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected and distinguished guest from Somalia, Dr. Mahmoud, and my colleague and principal of Muhammad Sadiq College, Dr. A.M. Allah Muhammad, and my beloved brothers and sisters from Somalia. salaan kadib wuxuu u hambalyeeyay ardada Soomaalida ee qalin jebisay, wuxuuna sidoo kale ku gubaabiyey in ay waqtigooda ka faa'iidaystaan siina wataan waxbarashadooda maadaama ay ka yimaadeen waddan aad uga fog dalka India. ardada Soomaalida ee wax ka barata jaamacadaha dalka India ayaa waxay sidoo kale wax ka bartaan jaamacadda Cusmaaniya ee ku taala gobolka AB, gaar ahaan caasimaddiisa Hyderabad. jaamacaddan Cusmaaniya ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 1918. jaamacaddani waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu waaweyn ee ku yaala gobolka AB. waxay ku fadhisaa dhul aad u baaxad weyn. jaamacaddan waxaa hoostaga kullejooyin fara badan oo laga barto arts iyo science intaba. waxaa dhigta ardada ugu badan ee ajnabiga ee wax ka barata gobolka AB. ardada ugu badan ee ajnabiga ee wax ka barata gobolka AB ayaa waxay ka yimaadeen wadamada Carabta sida wadamada Yemen, Cumaan, Sacuudiga iyo wadamo kale oo Afrikaan ah sida Soomaaliya, Suudaan, Jabuuti iyo wadanka Eritrea. ardada Soomaalida ee wax ka barata jaamacaddan Cusmaaniya ayaa waxay gaarayaan 600 oo arday, waana tirada ugu badan ee wax ka barata jaamacaddan Cusmaaniya. jaamacadda Cusmaaniya waxaa sanad kasta ka qalin jebiya arday Soomaaliya. sanadkan 2009 waxaa ka qalin jebiyay 30 arday. jaamacadda ayaa waxay qabataa xaflad qalin jebin ee ku sugantinaysa ardada ajnabiga ka qalin jebisay jaamacadda, waxayna guddoonsiisaa shahaadada jaamacadeed. xafladda ayaa waxay ka dhacdaa xarunta weyn ee jaamacadda ee magaalada Hyderabad. xafladaha noocan ee jaamacadda Cusmaaniya u qabato ardada ajnabiga ma qabtaan jaamacadaha kale ee dalka India, sababtuna waxay tahay waxaa dhigta arday badan oo ajnabiya kuwaasoo aan dhigan jaamacadaha kale ee dalka India. waxay sidoo kale xafiis gaar u samaystaa ardada ajnabiga maadaama aad ugu badan yihiin jaamacadda. xafladan ayaa waxaa ka soo qaybgalay madaxda jaamacadda iyo dadweyne aad u fara badan. xafladan qalin jebinta loo qabtay ardada ajnabiga ayaa ardada Soomaalida waxay ka mid yihiin ardada ugu badan oo ka soo qayb gashay.
ardada Soomaalida ee sanadkan 2009 ka qalin jabisay jaamacadda Cusmaaniya ayaa waxay ka kala qalin jabiyeen kulliyadaha kala ah kulliyadda kombiyuutarka, kulliyadda ganacsiga, kulliyadda maamulka iyo maareynta, kulliyadda microbiology-ga, kulliyadda biotechnology-da iyo kulliyado kale oo fara badan. marka la isku geeyo ardada Soomaalida ee sanadkan 2009 ka qalin jabisay jaamacadaha dalka India ayaa waxay gaarayaan 120 arday waxayna u badan yihiin saddexda jaamacadood oo kale ah jaamacadda Maysuur, jaamacadda Cusmaaniya, jaamacadda Madras oo dhammaantood ku yaala gobollada koonfureed ee dalka India. dhammaan ardada Soomaalida ee wax ka baratay dalka India ma ahan arday ku timid deeq waxbarasho ee dawlad siisay ama dawlad ka bixinayso ee waxay ku tiirsan ehelooda oo bannaanka uga soo dira lacagaha jaamacadda iyo kuwa biilka intaba halka wadamada kale ee Soomaalidu wax ka bartaan laga helayo arday badan oo Soomaaliya ku joogta deeq waxbarasho. ardada wax ka dhigata dalka India ma ahan ardada jaamacadaha dhigata oo kaliya waxaa jira qoysas Soomaaliyeed oo ka soo guuray dibadda dalka India kuwaasoo ilmahooda waxbarasho ugu soo bixiyay dalka India. qoysaska Soomaalida ee ka soo guuray dibadda dalka India ayaa waxa ay intooda badan ka soo guureen wadamada Carabta gaar ahaan wadamada Khaliijka inkastoo ay jiraan qaar fara ku tiris ka soo baxay dalka Soomaaliya xilliga ay dagaalada ku socdeen 2006. qoysaska Soomaalida ee degan dalka India ayaa intooda badan waxay degan yihiin magaalada Hyderabad ee koonfurta dalka India. iskuulada magaalada Hyderabad ku yaala ayaa waxaad ku arkaysaa arday Soomaaliyeed oo aad u fara badan kuwaasoo isugu jira qaybaha kala duwan ee ku kooban yahay iskuulka iskuulada hoose dhexe iyo sare intaba. ardada Soomaalida ee wax ka dhigata magaalada Hyderabad ayaa waxay isugu jiraan kuwa loo diyaarinayo dugsiga sare ayadoo arkayso kuwa badan oo dhiganaya koorsooyin injineeri ama caafimaad ah. qoysaska Soomaalida ee inta degan dalka India ayaa waxaa lagu qiyaasaa ilaa 50 qoys ilmahooduna ay gaarayaan ilaa 90 carruur. qoysaska Soomaalida ee degan magaalada Hyderabad ayaa markaad waraysato waxay kuu sheegayaan in ilmahooda waxbarasho tayo badan uga heleen dalka India. marka laga tago dhinaca waxbarashada waxaa arkaysaa dad badan oo Soomaaliya oo jooga dalka India kuwaasoo ah dad qaxootiya inkastoo aysan ku xareysnayn xiriir qaxooti hase ahaatee intooda badan waxay haystaan warqadda aqoonsiga qaxootinimo ayagoo kala degan gobollada kale ee dalka India inkastoo intooda badan ay ku nool yihiin magaalada Delhi waa caasimadda dalka India iyo magaalada Hyderabad oo ay Soomaalidu aad ugu badan yihiin. وأنا أحمد عبد الولي ويسوع دياري برنامج كان خاص كان في أجنبي سيد أي صومالي وحقوق برتان تلك إندي.